madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mudane Mustafe Muxummed Cumar oo howlo shaqo ugu sugan magaalada Godey ee caasimadda labaad ee dawladda deegaanka Soomaalida ayaa waxa uu maanta soo kormeeray wadada laamida ah ee isku xidhaysa magaalada Godey iyo degmada Qallaafe. madaxweynuhu waxa uu u koorgalay wadadani tayadeeda iyo sida habsamida leh ee markaas ay u socoto.